anigu wixii aan shalay diidanaa ee ahayd tala meel kale la iiga soo raray la igu dhiqi maayo dadkayga loogu talin maayo ee aan 15 sano ka dagaalamayay maanta ma ogolaan karo reer walaalahaya oo dariskayga ah inaan ku sameeyo kamana mid noqon karo warsangeli waa walaalahayo waa dariskayaga dambaanu kaleenahay duruufahayaga isku xidhan uma quudno in aanu niraahno annaga idinka xulanayna idinka yeeranayna idinku talinayna idin joojin mayno dhaqankiina iyo odayaashiina iyo waayeelkiina waxba weydiin mayno nagama qabato kulama dhici karayno wixii aanu shalay annagu diidanayn inaanu iyaga ku samayno walaalayaalow naga raali ahaada arrintaasina arrin annaga naga suuragal ah maaha arrinka la isku maandhaafsan yahay waa intaynaan cid kale ku xadgudbin dambi iyo godob aynu tolbari aynaan ka maarmayn aynaan ku samayn inagu aynu tashan wax isweydiino cidina khasbi kartaa ma jirto waa reality SSC Khaatumo meelna uma socoto meelna ma aadi karayso inagu waxeena aynu si mugla uga tashan cidda aynu doonayno aynu si mugla ugu tagno ula tashanno kaga hello ha iyo maya haddaynu niraahno waanu isku dhex khaldaynaa warteena khatar galaysa teena dhibaato ku imaanaysa wax ina khasbaya iyo cid gacanta ina maroojin kartaa ma jirtee aynu wada tashan talawiyeera loo dhan yahay dhinacyada laga fadhiyo walaalayaalow taasaa ina deeqda taasaa meel ina gaarsiin karaysa tii kaleba ee gacanta laynagu maroojinayo laynagu khasbay haddaydan sidaa maanta yeelin layna leeyahay waxaanu idinla doonaynaa waayaysan war waxaanu u joognay kumbeenood oo noloo sheegay 15 sanaan arrintan daba socday god kasta ay gasho waan garanayaa war waxaan u baqayo waxa weeye SSC Khaatumo in la dibindaabiyeeyo oo god ayan ka soo baxayn bari lagu rido SSC way jiraysaa waynu jiri doontaa insha Allah ta'ala cidna looga baqi maayo cidna loo baryi maayo wabillahi tawfiiq